markan waxaad ila soo dhaweysaan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee magaalada Tanqaahira Ustaad Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo kelmad asagana ka hadli doono warbaahinta horumarka ay leedahay iyo faa'iidada ay bulshada u leedahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhamaan martisharafta ayaan ka bilaabayaa diblomaasi sare Ali Bashir Ahmed Bukhari gudoomiyaha xisbiga PDP laantiisa magaalada Qaahira Abdullahi Dahabshiil iyo waliba ganacsade Cabdiraxmaan Hilowle si gaar ayaan u salaamayaa iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay rag iyo dumarba dhammaantii waxaan marka hore u mahadcelinayaa madaxda PDP laantiisa Qaahira oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga PDP magaalada Qaahira Ahmed Bukhari iyo howlwadeenada guud ahaan iyo dadka soo agaasimay xafladan lagu maamuusayo afar sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta xisbiga PDP ee magaalada Qaahiro oo anigu aan ka mid ahaa raggii u soo joogay xilligii la aasaasayay sidoo kalena ay ka mid ahaayeen rag haatan wasiiro ka ah xukuumadda federaalka ee dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay saaxiibkeen Mahad Maxamed Salaad. intaa kadib ma rabo inaan ku dheeraado waa laga mudnaa kelmadaan lay siiyey si degdeg ah laygu sheegay doorka warbaahinta oo waxaa iga mudnaa waxaa jooga saxafiyiin rubacda ah oo uu ka mid yahay Ustaad Caabi Faarax oo u soo joogay warbaahinta Soomaaliya ama doorka saxaafadda Soomaaliyeed xilligii nabadda ama berisamaadkii iyo wixii ka dambeeyay sidoo kale waxaa joogo academic sare saaxiibkay Daawud oo dhammaantii isagana iga mudnaa iyo rag badan oo magacyadooda aanan wada tabin karin inay ka hadlaan laakiin waxaan guudmar ku samaynaya intaan u soo joogay wixii sagaashameeyadii ka dambeeyey doorka warbaahinta Soomaaliya ay ka qaadatay dhalinta nabadda iyo maamulada hadda ka jira dalka Soomaaliya. waxaan jeclaan lahaa marka hore warbaahinta inaan fahno warbaahin waxaa weeye aaladaha lagu gudbinayo ama agyageeda lagu gudbinayo wararka sida news editorial oo faala entertainment oo madadaala iyo mararka qaar loo adeegsado waxa la yiraahdo duruusta dhinaca educationka ama waxbarashada ama duruus diini ha ahaato ama dhinaca sayniska ha ahaato ama waxyaabaha kale ardayda u baahan yihiin meelaha loo mariyo waagii hore waxaa ugu horeeyey wargeysyada waxaa ku xigay raadiyaha sidoo kale TV-ga oo isaguna door weyn ka qaatay Soomaaliya waxa uu ka qaaday sideetameeyadii sidoo kale waxaa sanadihii dambe soo baxay waxa loo yaqaano social media oo internetka qayb weyn uu ka qaato oo website-yada lagu soo bandhigo gaar ahaan social media ama baraha bulshada ay ku wada xiriiraan sida Twitter-ka iyo Facebook oo lagu soo bandhigo wararka iyo dhacdooyinka. marka warbaahinta waxyaabahaas la isku yiraahdo marka si kooban loo sheego marka Soomaaliya sida nabadda ay u qayb qaateen dhammaantii dadkii u soo halgamay in idaacadaha Soomaaliya ama warbaahinta nabad ay ka dhaliso intooda badan way dhinteen Allah u naxariiso oo waxaa ka mid ahaa Ali Imaan Sharmaake ilaahay jannadii ha geeyo marka waxay ahayd si xusuus haddaan qaldanayn sanadii 1999 markii idaacaddii Horn Africa oo idaacadda ugu weyn geeska Afrika ahayd dhulka Soomaalida la aasaasay oo saddex nin oo ganacsata aasaasay wax weyn ayay bulshada Soomaaliyeed ka bedeshay gaar ahaan magaalada Muqdisho oo aniga xilligan ku noolaa Muqdisho waxay ahayd mid iska kala xiran oo xaafad walba isbaare ay taalo dadku waxa laga dhaafiyay nabadda waxay tahay iyo in la niqaasho sidoo kale waxaa ku xigay idaacadda SCN oo ninka aasaasay magaalada una laga joogo inkastoo aan ku casuumay inuu yimaado laakiin ma uusan imaan TV-ga SCN oo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Rooble ula yare oo asagana door weyn ka qaatay iyo idaacaddii Banaadir oo dhinaca waqooyi Muqdisho ka furnad iyo Shabeelle
waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah doodo iyo inay dadka ay fahmaan waxay nabadda ay tahay. Okay, waxayna ku guulaysteen ugu dambeyn inay nabadda ay dadka ay fahamsiiyaan dhismihii dowladdii cabdiqaasim, tii cabdilaahi yuusuf, tii sheekh shariif iyo wixii la mid ah. doorkaas ayay soo ciyaareen warbaahinta. saxafiyiintii soo halgamay waxaa ka mid ahaa barnaamijkii muhiimka ahaa hoodi oo saaxiibkeen Mahad Axmed Cilmi, ilaahay jannadii ha geeyo, la dilay oo wax weyn uu ka bedelay oo xaafad waliba laga warhaynayay. ugu dambeyn warbaahinta haatan waxay qayb weyn ay ka qaadataa la dagaalanka argagixisada iyo dadka nabadda diida. oo sida aad ogtihiin TV-yada dadka qurbaha jooga, TV-yada tirada badan Soomaalida ayay qayb ka qaataan inay nabadda ay ku baaqaan. dhinaca negative-na waa la dhihi karaa inay colaad ay ku baaqaan ayagoo taageeraya maamul goboleedyada iyo waxa dadka Soomaalida lagu kala qaybinayo. waxaan halkay ku soo koobayaa in warbaahinta saxafiyiinta laga doonayo iyo dadka ganacsatada ee warbaahinta gacanta ku haya qatarta Soomaaliya soo wajahaysa mustaqbalka oo haatan ifafaalahooda ay bilowdeen inay baahiyaan waa ay ka digaan. waa qatar mustaqbalka ku soo wajahan Soomaaliya oo hadda ifafaalaheeda ay noo muuqaan. Okay, qatartaasi waxaa ka mid ah oo aad looga baqayaa inay Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed raad weyn ay ku yeeshaan. waxaa soo socda bulshooyin Soomaaliyeed oo masiixiyiin ah oo qurbaha ka imaanaya oo social media aad ku aragteen. waxaa soo socda bulshooyin Soomaaliyeed oo Shiica ah oo Facebook aad ku aragteen iyo ma aragteen. waa qatar weyn oo laga rabo in warbaahinta qayb ay ka qaadato in qatarta Soomaaliya ku soo wajahan sida argagixisada loola dagaalamayo wixii qarankeena, qayimkeena ama dhaqankeena suuban, diintanada, caqiidanada muhaddad ku ah oo qatar ku ah in warbaahinta qayb ay ka qaadato. xisbiyada qayb ay ka qaataan oo marka hore dastuurkooda waxay ku jiraan filayaa la dagaalanka argagixisada iyo nabadda dadka diidan in lala dagaalo, in lagu daro dadka caqiidada aan aaminsanahay, ma aragtay qayimka aan aaminsanahay diidan iyo dhaqankeena burburinaya oo annaga dibadaha laga soo abaabulay ku wajahaan mustaqbalka Soomaaliya inay tagaan in ayagana door weyn laga qaato sidii looga hortagi lahaa. lianna warbaahinta waxaa la yidhaahdaa waxaa loo adeegsan karaa laba dhinac. waxaa loo adeegsan karaa dhinaca wanaagsan oo dadka in la kiciyo sida walaalaheennii idaacaddii Horn Africa ay sameeyeen sida Cabdiraxmaan Diinaari oo kale 99kii. Okay, wuxuu sameeyey doodo ah dadka in nabadda muhiim ay tahay, qabqablaha inuu yahay nin aan muhiim ahayn oo ma aragtay danihiisa fiirsanayo, beeshiisuna daacad uusan u ahayn. marka waxyaabahaasi in laga faa'iidaysto dadka in la kiciyo. waxaa intaas sii dheer oo aan jeclaan lahay inaan xuso idaacaddii Shabeelle inaan la hilmaami karin. lianna waxay samaysay sheeko dadkii magaalada Muqdisho jooga ayaa garanaya. waxay samaysay sheeko la yidhaahdo qoomamo oo dadka maleeshiyaadka ah oo lagu shaqaysanayo dhalinyarada wixii 20 jir, 17 jir, 18 jir qori wata oo magacay u bixiyeen oo ay yiraahdeen malibaanayaashii lagu liibaanay. lianna qorigu wata waa lagu shaqaysan ama nin ganacsada ayuu u shaqeeyaa ama nin siyaasi qabqabla ah. marka warbaahinta qaybtaas waxay ka qaadatay in dadka ay u ifiso in qabqablayaasha iyo dadka maaragtay siyaasiyiinta ay dalahooda gaarka ah ka shaqeeya inay mustaqbalkooda qatar uu ku yahay. falilaahi alxamd hadda maanta way yartay wiil dhalinyara oo la qaldaya oo la leeyahay kaale reer hebel u dagaalan aad bay u yartahay waan wax lagu farxo. inkastoo dad yar maskaxda laga hayso ayagana mustaqbalka waa laga baxaya biidn illah. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan mar kale u mahadcelinayaa saaxiibkay Axmed Buqaari iyo guud ahaan dhalinyarada BDB xafiiskooda magaalada Qaahira oo iyagu xafladan quruxda badan nagu marti qaaday. waana mahadsantahay sidaa